booliiska degmada hodan ee aad degantihiin waaye saldhigu ka socoyaa xaafadda howlgala ka jirto wax dhibaato ah ma jiraan albaabka naga furo aan iswareysano wax dhibaato lama jiraan booliis Soomaaliyeed guriga aan la baa وهالقلا يسوي جرها أفلنيين لما أمني قريبه هذا كله جديسن هل كان قصة جنها وازجوز كلا بركة دقمة هذا نوكم ده تضمي تمن كدقمة إيه قبل كني بنادر مكان أوكي عادي تهبي تماما أنا نقفر أحسن هاي أدام الباب كأجنا فرت وقلعت أنا كبارنا ورالي أكو because دلك أوكي أبا ما صنت أنا نساسو كلته أبي ونكسن waxaa mid loo baarayay xaafadaha ku yaala degmadan hodan shacabka iyo gaadiidka qaybahooda kala duwan intuba ciidanka qaybta guud ee booliiska gobolka Banaadir iyo sidoo kale ciidamada gaarka u toobaran sida Haramcad Jet RRT ciidanka jagboontiida gurguura iyo ciidanka sida degmada hodan oo iskaashanaya ayaa sameeyay howlgalkan ay ku sheegeen inay ku xaqiijinayaan amniga magaalada caasimadda ee Muqdisho ماي لبمان waa boqolaal dhalinyaro kuwaasoo laga kala keenay guriyihii ay ku jireen iyo goobahooda ganacsi la isuguna keenay isgoyskan albaraka isla markaana dhankooda halkaas ayaa lagu baarayay yaasiin nuur khayr yaasiin gani taliyaha qaybta wali oo caday iyo bashiir cabdi siyaad taliyaha saldhigga booliiska degmada hodan ayaa horkacay howlgalkan balse taliyaha yaasiin gani dhalinyaradii goobtaasi ku sugneed ayuu la hadlay isagoona yiri ma sameynaaye waqtiga shaqada hal isku diyaar gareeyo aan sameeyno waqtiga ugu badan oo aan sameey doono oo wali aan ingugu celinayo waa baraarujin fadlan amniga inaad ka shaqayso oo aad wacdo 991 si aan baraarujintaas u helno oo aad ula xiriirto tuugaas dadka dhacaya ee dhibaatada u geysanaya adna aad u badbaadi karto qofkaas shacabka ee dhibka loo geysanayo laakiin intaad aragto ina adna luuq inta ku sii carartay istiraad sii carar war adiga bariye kugu iimaanee hadda maanta badbaado oo bariye ku badbaadinaya tuugi adiga qarsado Soomahan ha qarsan fadlan la xiriir ciidanka amniga ee 991 been idin sheegi ma hubi inta falin ka fiirso waa ma satiin kula idin jeena ama sintiin guula idin rashaynaad howlgalku mid saacado qaatay ayuu ahaa oo ay saraakiishu ku sheegeen inay kaga hortagayaan falalka lidigu ku ammaanka caasimadda ee Muqdisho intaasi kadib warfidiyeenka waxaa la hadlay taliyaha saldhigga degmada hodan bashiir cabdi siyaad kana waramay ujeedka arintan oo taariikhdu ay tahay 14 bishii 7 2022 waxaan bilaabnay howlgal lagu xaqiijinayo amniga anagoo fulinayna amarkii taliyaha booliiska Soomaaliyeed iyo taliyaha qaybta guud dhammaan waxaan ka sameeynaa howlgal degmada hodan howlgalkaas oo isugu jira baacsiga burcadda iyo cid kasta oo amniga lid ku ah howlgalkaas waxaa ka qayb qaatay ciidamada booliiska Soomaaliyeed qaybihiisa kala duwan sida Haramcad qaybta guud Jet iyo ciidamada loo yaqaano kontaroolada gurguura sidoo kale waxaa ka qayb qaatay ciidamada nabad sugidda guud ahaan iyo gaar ahaan kuwa degmada iyo kuwa guud intaba howlgalkaas oo ujeedadiisu ay tahay in saddex qodob ka turjuma qodobka koowaad uu yahay wacyigelinta bulshada si haddii ay arkaan cid waxa weeye maartay dhibaato ku haysta ama amniga lid ku ah ay ula soo xiriiraan 991 sidoo kale kooxaha nabadiidka oo ku dhumaaleysana deegaanada maadaama la joogo waqtigii doorashooyinka annagoo ka duulayna waxaan baaritaan ku bilownay xaafadaha degmada hodan guud ahaanna waa operation soconaya oo gobolka Banaadir oo dhan ka soconaya waxaan bilownay inaan baarno guryaha dadka gaadiidka wana socod doonaa haddii Ilaahay idmo howlgalladaas oo lagu xaqiijinayo amniga haddii Ilaahay idmana waa uu sii socod doonaa shacabka Soomaaliyeedna waxaan halkaan fariin uga diray anoo ka faa'iideysaa inay mar walba wax ka bartaan dhibaatooyinka dhacay lana soo xiriiraan ciidamada amniga garabna siiyaan si aan uga hortagno cadawga ku dhumaalaysanaya bulshada dhexdeeda waana maasantiin saraakiisha laamaha amniga dowladda federaalka Soomaaliya waxa ay sheegeen inay wadaan joogteynta howlgallo lagu xaqiijinayo ammaanka magaalada caasimadda Muqdisho Faadimo Cabduqaadir raadiyo TV-ga dalsan Muqdisho
si aad ugu adeegato Premier Wallet kaliya taabo batanka Pay ku aadi kaamirada QR-ka goobta aad wax ka iibsanayso gali lacagta iyo faahfaahin kooban taabo Next kadibna Confirm ugu dambeyntiina gali MPin-kaaga si aad u dhamayso iibsashada Premier Wallet waa habka ugu casrisan ee aad ku adeegan karto maalin kasta.